السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبيهانتين به وإذا السلام يا ميل والبه وأديك مقليسان وقت والبه يدين تهي عن كعور دارنا يا إذا ولي بحل الدنبو أو أي دنبه سوماليا كتهي يجيس أفريقيا إن إسكوداي هراء عن دمعي إن عن كسر جله برنامج دنك يوتيوب كا ويشقين واي الرمال حريرة إلا فرسمو مركب عن فوق سبنا ضي إن عن مر دنبه عن كسر جل دنك عن إيو فيسبوك سي أصحابته يقول حرن أنا لو داعو دور أخبارات عن دون يي إن سوق بيو حرام مركه هراء عن كهدلو سفر كي بدل وزارها أو فشل كسر دمعي iyo waxaan kaloo ka hadli doonaa qorshihii qalbi dhagax ee maalmihii lasoo dhaafay la waday oo la ogaaday inuu yahay qorsho ay maalgelinayeen dowladaha reer galbeed ah iyo dowladaha carbeed finally waxaan ka hadli doonaa ayaduna dowladda Mareykanka oo dib Soomaaliya u keeni doonta ciidamo iyo saraakiil tababarta ciidamada Soomaaliya maxaa soo celiyay iyo su'aalo noocaaya ayaguna ka imaanaya oo qayb badan oo kamid ah aan wali wax jawaab loo haynin saddexda qodob baan ka hadli doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali ka soo dhawaada haddii aan ku bilaabo arrinta rooble safarkan maalin dhaweytana runtii waan falanqeeyay haddana waxaan ka hadli doonaa dhowr meelood oo inoo muujinaya waxa uu safarka u ahaa waxaan ku dari doonaa xogo la xiriira wixii halka uga soo qabsoomay ra'iisul wasaaraha dalka markii ugu horeysa safarka markii aad fiiriso wuxuu ahaa safar runtii soo dhaweyntii uu lahaa safarka oo maqaamkii uu lahaa safar aan runtii aan ra'iisul wasaaraha lagu soo dhaweynin ayay ahayd waxaa jira markii la soo dhaweynayo madaxda waliba high official government markii la soo dhaweynayo qaabab runtii casri ah ama qaabab la yaqaano procedure caalami ah ayaa loo soo dhaweeyaa oo loo maraa askarta u imaanaysa madaxda soo doonaysa meesha la dejinayo waxa laga hadlayo procedure protocol leh ayaa la maraa ma aha waxa iska garab yaaca hadii safarku uu yahay safar maxaa la yiraahdaa shaqo oo laba dowladood ay ka naqaashayaan arrimaha iyaga khaaska safarku marka ugu horeysa markii la fiiriyo marka safar halka maray muusan ahayn ra'iisul wasaaraha sida looma soo dhaweynin haddii marka aad doonaysaan aad ka ogaataan farqiga u dhaxeeya qaabka loo soo dhaweeyo dadka madaxda ah waad raadin kartaan standard procedure-ka loo talagalay oo protocolka dad google-ka ku qortaan wad arkaysaan iyo sida ra'iisul wasaaraha loo soo dhaweeyay farqiga u dhaxeeya ma doonayo inaan hal ugu laabto laakiin arrinta meesha way ka marnayd marka ma iyaga keenay ma dhanka kale ka timaaday ma garanayo laakiin waa calaamad fool xun oo ku dhacday qaranka Soomaaliya inta ugu badan dhalinyaradu waxay u maleynayaan ama dadka ay ka fiirinayaan haddii Robel wax qaldayo maxaa naga galay bay dad qaar ka fiirinayaan laakiin waxaad ogaataan wax walba oo qof xil dalka ka haya uu sumcad darro uu sameeyo recordka iyo diiwaanka ayay waxay u galaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maaha arrin la leeyahay Hebel baa sameeyay iyo Hebel baa sameeyay laakiin waa arrin dalka Soomaaliya runtii galaysa annaga isu kala qaadna reer iyo koox iyo dad kala duwan laakiin caalamku waxay inoo yaqaanaan Soomaali baan loo yaqaanaa dowladdeena dowladda Soomaaliya loo yaqaanaa marka waxa la wixii dhaca Hebel yaa sameeyay lama dhahayo dowladda Soomaaliya sameysay baa la leeyahay taasa marka inta ugu badan dadka wax garanaya waa sababta ugu gubanayaan waxa roob la sameeyo taa marka waa halkaasi waxa kale oo aan xog rasmi ah aan ku helay in rooble uu dalka weydiistay dhaqaale asagu doonayay oo shakhsi ah balse aan wax dhaqaale dalka laga soo siinin waxa xogtaani ay ka fakatay oo laga baahiyay dad ku xeeran wasiirka amniga ama ninka loo yaqaano 30 jirka dad asaga ku xeeran ayaa xogtaani runtii soo gudbiyay oo dad kale la wadaagay oo iyaguna saaxiib la ah wuxuu ninkaa sheegay oo laga soo xigtay inuu yiri nimankii Imaaraadka waxay nagu yiraahdeen wax lacag ma hayno hadii mataqaanaa uu ra'iisul wasaaruhu dalka ka yahay madaxweyne oo asaga dalka lagu wareejiyay lacagta taala dalka Soomaaliya oo laga qabsaday 2018 lacagta qaybna odaga ka qaato qaybna annaga maxaa la yiraahdaa hana la siiyo waa hadii aad dalka mas'uul ka tahay hadii aan dalka mas'uul ka ahayna daadir ma aan wareerin ayaa lagu yiri baa laga soo xigtay 30 jirka ninka la yiraahdo marka lacagtaasi waxa la rajeynayaa soo laabashada rooble oo la yiri maalinta bari uu soo laabanaya waxa kale
وأيضنا ساعدي لصودا في الشيء إنه برد دم بقول عندنا كل بري يبرد دم ولا مضوا على الحياة إنه صار لعبان دونه رجل زرعها وحقوه الرأي مركا ولا غفل أيه ولا صار لعبته وعرهم له حريرة العكس تمن كمليان هاي والريدنا سنة هري عن وش جاي عن قرار وش جاي تبدلنا أيرونتي أيو جايين إنه رجل وزاره له حريرة بنك قدحه وكير العكس حلا فصحه marka dabcan lacagta inaan la fasaxayn cid walba way ogtahay sabab loo fasaxa ma jirto waxay ahayd lacag dalka ku soo gashay qaab sharci darro ah mana jirto sabab loo bixin doono inta aynu ka warqabno lacagtii oo la bixin markuu roob la soo laabto halkaasna aan wax lacag ka soo helinin waxa ugu horeeyo marka la filayo waa in rooble ula soo laabto waxa loo yaqaano wareer iyo inuu hadba marka darbi isku qaado inuu soo qoro waraaq aan meel la ka shaqayn dooninin inuu dalka geliyo qalqal siyaasadeed iyo arrimaha la midka ah waxyaalaha dadku wax garanaya ay u muuqato inuu la soo laaban doono waxa kale oo runtii soo laabashada laga fili karaa inuu bangiga dhexe isku day xataa inuu yiraahdo waxaan ka qaadayaa shaqada wasiirka maaliyadda oo ay horey isugu dhaceen iyo arrimaha iyo dhan runtii waa laga filayaa waxaan aaminsanahay marka inay imaaraadka carabtu maadaama ay tahay dowlad runtii aan wanaagsanayn oo ilaahay ku imtixaamay dowladaha muslimka ah ee caalamka jooga runtii la tacaalaya xaaladaha kala duwan inay mar walba iyagu ay isku dayaan inay la soo ku maleegaan arrimo dhibaato ah waxaan aaminsanahay marka inay imaaraadku u soo sheegi doonaan roble kole naqshado cusub oo uu isugu dayi doono inuu dhibaato ku sameeyo inay istaraatiijiyado dalka lagu dhibaateeyo usoo dhiibi doonaan in loo soo jeexi doono qaabkii marka ama shaxdii uu ku weerari lahaa madaxweynaha iyo dowladnimada Soomaaliyaba waxayo dhan waxyaalaha la filayo weeye imaaraadku mar walba oo ninka ay la kulmaan dhibaato ayaa dhacda tusaale saddexdii kulan oo ninka ra'iisul wasaaraha ah iyo dowladda imaaraadka carabta ay shireenba saddexdaba waxba dhacay markii ugu horeysay saddexdii jeer ugu dambeeyay waxay ahayd September 12keedii markii uu bangiga dhexe iyo dowladda ku yiri lacagta hal sii daayo ayaantii isqabsigii madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu ay socdeen wuxuu la kulmay safiirka Soomaaliya safiirka imaaraadka u fadhiya Soomaaliya kadibna arrintaas dhacday markii labaadna waxay ahayd markii dhawaan bishii December sidoo kale uu soo saaray isla waraaqdaasi oo ayaantii hore ay beeniyeen ee dib u soo celiyeen oo madaxweynuhu waraaq la ka soo daba saaray oo lacagtii la diiday markii saddexaadna waa 30kii bishii hadda inaga dhamaatay January ayuu ra'iisul wasaaruhu markaa haddana mar kale uu soo saaray ama nimanka intuu la kulmay ayuu haddana waraaqdaas soo saaray mar walba oo nimanka uu la kulmaba ama uu la naqaashaba waxa la soo saaro waxa weeye lacag buu weydiiyay ayaguna waxay ku yiraahdaan hadii aad lacag u baahan tahay lacagtii taalay ma soo qaadi baa lagu yiraahdaa marka soo laabashadan marka waxa suurtagal ah inay noqoto mid waali iyo aggressive ah oo dhankiisa ka timaado laakiin waxaan rajaynaynaa inaysan dhicinin oo arrinta inta ay ku istaagto dalkan u turaynaa in la isku dhacaabo maleynayo inay cidna hadda ay important u tahay qodobka intaas aan uga baxaya wixii roob la yimaada arki doonaa laakiin soo dhaweyntiisii iyo cidii uu la fariistay iyo waxa ay dhan markii aad fiiriso aad ka arkaysaa runtii inay yihiin ama ay tahay wax fool xun oo ku dhacay sharafka iyo dowladnimada Soomaalida ama Soomaaliyaba taa marka intaas aan uga baxaya ku dheeraan mayo waxaan rabaa u galo qorshihii maalmihii la soo dhaafay la waday khaasatan bishii la soo dhaafay ee la xiriiriyay qalbi dhagax iyo ONLF baa laga saaraya listiga argagixisada ee Soomaaliya waxaan soo xaqiijiyay oo aan waxba ka jirin ba jirto hata liis la geliyay oo nimanka ay ku jireen oo diiwaanka uu ku qoran yahay constitution-keena kuma qorna dhanka wasaaradaha iyo xukuumadana ma jiro wax sharci ah oo la bedelay oo ONLF-ta ay u diiwaan gashanayd inay tahay koox argagixisa ah hadalkaas afka laga yiri afkaana laga kansala waxa marka wax diiwaan ah oo laga saaray ma aysan jirin waxa maalmihii la soo dhaafay runtii soo baxayay xoga sheegaya in dowladda sheeye ay maalgeliyeen qorshaha oo uu ahaa qorshe la doonayay in khayre iyo farmaajo loo arko inay yihiin dad kulay doorashada rajo fiican haysta in markaa lagu dhaawaco haddii la arko qorshuhu marka inuu shaqeeyo in dhaqaale badan lagu bixiyo haddii la arko qorshuhu inuu shaqeynayninna dabcan la iska daayo xalayto ay African Intelligence waxay ka qortay marka warbixinta ka bacdi xogta ka bacdi ay xala African Intelligence wax ka qoreen arrimahaasi waxayna si toos ah u sheegeen in arrintaasi ahayd qorshe
fashilmay oo la isku dayay in la sameeyo dowladihii maalgelinayay imaaraadka laga sheegay iyo dowlado kale reer galbeed laakiin magacooda lama xusinin arrintan way jirtaa roble waxaa la damcay wuxuu damcay bay yiraahdeen ama ay xogtu leedahay inuu dhibco siyaasi ah ka qaato roble khayre iyo ninka loo yaqaan farmaajo isla markaasna shaatigoodu uu mariyo wasaq la xiriirta inaan dib loo dooranin haddii marka la arko in qorsho shaqeynaya yahayna marka dhaqaale lagu bixiyo hadduu shaqeynayo la iska daayo waxay xogtaasi caddaysay African Intelligence ay xalab daabaceen inay arrintaasi noqotay arrin fashilmatay oo aan waxba ka shaqeynaynin halkaasna markaa looga gudbay taana marka halkaasi ahayd waxaad ka arkaysaa marka intii shakhsi ah oo siyaasiyiin sheeganaysa oo qorshahaasi bumbuuninayay oo meel walba gaarsiinayay oo soo laba qaadayay arrintii qalbi dhagax ee almost 5 sano ka hor ahayd oo hadda aan garanaynin cidda hadda ay saameynta ku yeelan karto iyo wax laga bedeli karo dadkuna ay ka wada warqabeen halka ay ku dhamaatay arrimaheeda oo dhan finally waxaan inaan u galo dowladda Mareykanka ayaa dib u keeni doonta Soomaaliya ciidamo bisha March ee soo haysa arrintan runtii xogta laga hayo way yar tahay laakiin waa si sheegaynaa walba inuu helo inaynu sheegno inuu ku balansanayn waxa kale oo runtii la yaab leh in bishii hore in sanadkii hore aan iraahday 2021kii ay dowladda Mareykanka Soomaaliya ka saartay 800 askari oo numberkoodu ugu badnaa ay ahaayeen saraakiil tababara ciidamada inay hadda dib ugu soo laabtaan Soomaaliya iyagoo intii ka badan 1400 ah waxa Soomaaliya marka ka dilaacay qof walba isweydiin karaa waxa ay dowladuhu raadinayaan shisheeyaha marka waa khayraadkeena iyo dalkeena iyo in la maamulo meesha mataqaanaa aynu ku naalno geographically badda aynu haysano iyo locationka aynu ku naalno ayaa la doonayaa marka in la maamulo oo dowladaha awoodda leh ay isku hayaan marka marba waan laga tagay mar waan loo soo laabanaya wax marka meesha waxa ku jira waxna looga tagi waayay ayaa dushanada ah waana barwaaqada iyo dhulkeena halka uu ku yaalo iyo fursadda caalamka maanta aynu ka leenahay ayaa la doonayaa cid walba inay ka faa'iideystaan marka musiibo ah in dadkeenu maanta ay wada garan waayaan inaynu opportunity ka faa'iideysano ugu yaraan dhulkan waa naga badan yahay khayraadkeenna waa naga badan yahay xilkaana waa naga badan yahay qabiil walba maanta wuxuu samaystay wax loo yaqaano dawlad buu samaystaa beel walba xildhibaan bay yeelataa wixii dhanba hadda marka faradii waa laga badiyo marka waxaan islaahay way naga soo haraysaa haddii aynu si caqliyan ah ama garashadu ku dheehan tahay aynu u isticmaalo laakiin dadkii ma garanayaan haddaan ku laabto xogtan 1400 askari baa la keeni doonaa bisha March oo tababara ciidamada Soomaaliya waxaa dib loo furi doonaa saldhigyadii ay dowladda Mareykanka joogeen mashaariicdii ay sameyn jireen mashaariic ka badanna way sameyn doonaan waxaa xusid mudan in ay aan dhaweyto ay dowladda Mareykanka iyo dowladeenu ay marar badan isku dhaceen halka ka muuqata marka meelaha ugu badan la isku haysto inay tahay waxa ay dowladda Mareykanku ka doonayso Soomaaliya ayay meesha ka lacdahay taasoo keentay waxay ola dagaalayso dowladeena iyo madaxweynaheena markaysan in marka hadda la keeno dabcan dowladda dhexe ayagu agreement-iga galeen ma garanayo marka waxa agreement-iga yahay waxaan rajeynayaa inuu noqdo agreement aan dalka dadka dhibaato u keenin intaasaan maanta marka leeyahay oo kusoo koobaya intaynu dib isaga soo laabanayno waxaan kaga tagay nabadino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh